gobolka iyo kuwa degmada iyo taliyaasha ciidamadana runtii waxay caddeeyeen in horumar weyn oo amniga ka jiro shacabka reer Afgooyana inay runtii aad iyo aad ugu faraxsan yihiin nidaamka iyo dowladnimada iyo nabadda soo laabatay marka runtii waana arrin dareenkayga yani aad u taabanaysa madaxweyne hadda Afgooyaa la joogaa dabcan dadku waxay filayaan in marka qaybaha kala gobolka loo diido haddana waxaa la leeyahay dowladda meesha tafsilo ayadaba halkaas ku mashquulsan marka maxaad kaga jawaabaysaa shaqo marka la qabto waxaa fiican in la hagaajiyo oo aan looga tegin garaasha waxyaabo yaryar marka waxaan rabnaa inaan fariisino marka hore amnigii in la fariisiyo maamulkii in la hagaajiyo abaabulkii bulshada iyo isku xirkii bulshada iyo dowladda إن شاء الله تبارك وتعالى ورسولنا وفشيسين هاي وبعثنا سيد الله. وين وخلى هذا الحياة الجرو هذا الرجال سابق الدولة هذا الله ولا جاء بين السود ولا كرمتها محاكي جرو. ما بدي كرنا برجعاش على شباب لكن جد الله عندي تصل الله بنيسا طريقة خلطن ديار اللي هاي كان سود ويننا وأوضاعنا مثلاً سلسو حرام dawladda oo dhan waxay ku mashquulsan gaar ahaan saraakiisha inay soo gudbiyaan cidii u arkaan inay diyaar u tahay inay maqlaan ka soo baxaan fikradii khaldanad kuna soo biiraan dawladda iyo fikirka wanaagsan ee dawladnimada iyo Soomaaliya. Madaxweyne dawladda Mareykanka dhawaan waxay sheegtay in madaxda ugu sareysa shabaab ay lacag ku bixinayso cidii soo sheegta marka idinka dawladda ahaan gaar ahaan adiga sidee u aragtaa intaas waxaan u arkaa inay taariikh fiican maxaa yeelay nimankaas ummadii Soomaaliyeed qarannimadeedii iyo nabadeedii iyo deganaanshadeedii aad u dhibaateeyeen marka in lacag madaxa la dul saaro waxaan u haystaa inay tahay arrin caawinaysa nabadda arrin culays saaraysa iyaga marka waxaan dhihi lahaa cid kasta oo suurtagal ah inay ka faa'iidaysato fursadaas ka faa'iidaysato سؤال كلنا في وولبا شخصيانا مدح دول دول تقولون مشرحين بالي رأيهم سكتي هذا مشرح مثلا أول سلم قالني يعني مركز هذا النهارده قال كان شغل وصيين جملة الأمن المعلومي جدا بي قواعد دولته أي لعنته كلفتي وحالة سلامة إن دبعته هيك جرت هذا مركز ما أنت هل كان عنه بيت كل هرنا واتميت بحكي بحث waxyaabaha meesha cunniga waxaa kamid ah inaan fursad u helo inaan saraakiisha ciidamada la shiro wasaaradaha muhiimka ah oo shaqadaas gacanta ku haya si amniga kor loogu qaado marka halkan waxaan ku daba doonaa insha allahu shaqo wanaagsan oo taabanaysa bulshada noloshada istaraatiijiyada iyo qorshaha hadda Afgoyn caawa noloshada in toddobaadyadan halkaas qorshahaas ku soo jeemay sida waxaan ku taajira waqti fiican وكان أنا أعرفه سرابيش عيدمدنا عن كلهم كلام فاتوها وصوت إن المتعلم ولي أي شباب في كثير من الوطن هتكون يتصعد ولا بحبنا فريقه كلسوني بقول عنكم صباح وحدثين درية كدي مثل قصاني لي حدنا خوش وقتشي في حنتاي مثل مهمتنا وحوائي دولة دي شعب شرير فوقنا ونفسنا وقبحي محايا لي دولة نمر عيد الله يا شعب كمرتين يدرانا شعبكم وده إليه خدمة الله يا مشاعر أريد الله سألكم هذا وقعت لنا إذا كذا عفيا وحنوقع بأن هاي تاجروا لنا والبلاء إن دولة الله شخيان إن عد كسر فقط أمنجة ومتقال بالشدة ومركز إن سوق فيان دولة إن متقال لقرب استاجان إذا من خلق السباق إذا من أيام الصنبة حيل يهون مركي لبعض halkaan timaado Afgoyn marka amniga ka hadlo مثلا markii hore khibrad xagga amniga ma isjirinay hadda Afgoyn oo timid khibrada dhinaca saraakiisha amniga ka waran على socda ciidamada qalabka sida mudadii koobnaad mataqaana ciidamadu abaabulkooda lagu jiro inay maalin ka dambe iskor ka caysid shurada ciidanku inay aad iyo aad u fiican tahay saraakiisha ciidanku inay dagaal fara badan ugu jiraan inay kor u qaadaan awoodooda mataqaana inay kor u qaadaan taasna waxaan aaminsanahay inay tahay dhaxal shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin marka aamin badan ku qabaa ciidanka qalabka sida inay awoodaan maxay ahayd waajibkooda gutaan khibrad badanna ay ka kasbadeen shaqooyinka faraha badnaa ee soo